السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سود هذا صحي بيال أصحاب تقييمها يقايا يقدر انت بمضن وولالك نور يوسف أحمد نور ودني وحان إن شاء الله سي وضينا سيدان إذن كبالن قاضي عشرة دين تحانها نقناي أو فائدة لها وحان مانتا سي قد قلنا عشرة دين وحان إذن سعودي عشرة كساب سنة برشد الطهارة abiskan ama ashradan mawduuceena aan ka hadlayno waxa weeyaan barashada tahaarada ayaan ku guda jiraa oo shalay qaadanay cashirka koobaad saaxiibayaal marka la soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada waxaan idinka codsanayaa haddii aad videogan kala socoto YouTube ina channelkeena subscribe iyo like share saarto sidoo kale haddii aad Facebook page kala socotana pagekeena follow iyo like saar aad iyo aad baa u mahadsantahay siina share garee la wadaag asxaabtaada waxaan guda gulaynaa cashiradeeni shalay waxaan soo qaadanay cashirka koobaad oo ahaa noocyada biyuhu u qaybsamaan waayahay maanta waxaan guda galaynaa cashirka labaad maadaama uu yar yahay waxaan jeclaystay inaan raaciyo cashirka saddexaad cashirka labaad waxa weeyaan haragga hagaajintiisa iyo weelka la adeegsado haragga hagaajintiisa iyo weelka la adeegsado waayahay aan guda galo وعشرك اللبات سوري حيسيس يرى نقصر حق لي إيرها النقطة مركا وحاويان خرج هجاجنتي سبالودي خرج ظاهرنتي س بختي هرجي سو ظاهر وكن نقطة بختي هرجي سو ظاهر كن نقطة بالودي إن لما قدي أما الله حوريو وسخط جدي سيء دبدي سبع waaye xayawaanada haragooda aanu daahirka noqon waxa kamid ah doofaarka iyo eeyga iyo wixii ka far ama labadooda waayahay baqtiga lafiisa iyo dhogortiisuba waa nijaas laakiin dadka lafahooda iyo timahoodu waa daahir waayahay weelka kuwe ay diinteenu ogashay in la isticmaalo ama la adeegsado waxa lagu yiri ma banaana in la isticmaalo weelka ka samaysan macdanta dahabka iyo qalinka laakiin waa la ogol yahay in la isticmaalo dhammaan weelka laga sameeyay wixii aan ahayn dahab iyo qalin hadii aanay wasakh muuqata ku oolin okay soo dhaweyno halkan waxa idinka muuqda weel laga sameeyay macdanta dahabka waayahay xagana sidoo kale weel laga sameeyay macdanta qalinka oo ah silver aan u socono horay waxa loo dhamaan weelka aan labada nooc ee macdanta kasamaysnayn waa la ogol yahay in la isticmaalo waxaan halkan ugu dhamaad cashirka labaad saan hore in ka balqaaday waxaan ku xigsiinina oo maanta raacinayna cashirka saddexaad maadaama uu cashirkan labaad yar yahay waxaan jeclaystay inaan inoo raaciyo cashirka saddexaad aad u maasantiin la socda cashirka saddexaad wuxuu ku leeyahay cashirka saddexaad waxa weeyaan weysaysiga iyo cadayashada waa muhiim cashirkan waxaan ka codsanaynaa si fiican oo la socotaan si fiican aad uga faa'iideysataan waayahay aan guda galo cashirkeena saddexaad maanta waxa weeyaan wuxuu leeyahay cashirkeena saddexaad oo maanta weysaysiga iyo cadayashada ayaan hore u sii guda galaynaa waayahay cadayga baa lagu yiri cadayga waa sunne waqti kasta in la cadayday oo caday isticmaasha waqti kasta waa sunna lagu yiri duhur wixii ka dambeeya uma banaana qof ka sooman inuu cadaydo laakiin culimada islaamku waxay u badan yihiin in qof ka sooman uu cadayn karo waqti kasta waayahay waxa lagu yiri qofka sooman uma banaano inuu cadaydo laakiin culimada qaar badanku waxay aaminsan yihiin ama ay qabaan bal qofku cadayn karo waqti kasta qofka sooman waayahay qofku in uu aad u cadayda waxay fiican tahay 3 jeer waa saddexde marka uu qofku afku isbedelo urtiisa ama aragiisa ee uu qofku in muddo ah aamusnaado waayahay marka uu qofku hurdada ka soo tooso haye maxaa kale marka uu qofku salaada u kacayo waayahay aan hore u socon hada
weysadu waxay leedahay 6 tiir oo faral ah waxayna kala yihiin faral ah baa lagu leeyahay faral baa lagu sii sharaxayaa 6 tiir oo faral ah faral waxaa lagu yiri wuxuu la mid yahay waajib haddii lagu yiraahdo waxaasi waa faral waxaa loola jeedaa waa waajib haddaba weysadu waxay leedahay lagu leeyahay 6 tiir oo waajib ah maxay kala yihiin kow in la niyeysto weysada marka weysada la samaynayo in la niyeysto marka la mayrayo wajiga lambar 2 wajiga oo la mayro lambar 3 gacmaha oo la mayro ilaa suxulada lambar 4 qayb madaxa kamid ah oo la masaxo madaahibta kale waxa waajib ah in madaxa oo dhan la masaxo lambar 5 cagaha hoose oo la mayro ilaa qurankuraha lambar 6 iyo in la kala horeysiyo sida ay u soo kala horeeyeen waayo weysada 10 shay ayaa u ah sunne waxayna kala yihiin kow in weysada lagu bilaabo bisinka bismillaahir rahmaanir rahiim aad markaad bilaabayso waayo lambar 2 labada calood ee gacmaha oo la mayro inta aan weelka lagu weysaysanayo aan la gelin gacmaha lambar 3 in la luqluqdo kadibna la sandaarsado lambar 4 madaxa oo dhan oo la masaxo lambar 5 dhagaha oo la masaxo dul iyo hoosba iyada oo loo adeegsanayo iyada oo la soo qaadayo balwali biyo cusub oo aan ahayn kuwii madaxa ka soo haray biyaha aad madaxa ku masaxday adigoo aan biyo cusub soo qaadin dhagaha kuma sii masaxi kartid ayaa lagu dhahay waayahay garka timaha badan oo faraha dhaxda laga geliyo si uu u wada qoyo lambar 7 faraha lugaha iyo gacmaha oo faraha la dhex geliyo si meelaha weysadu aysan biyuhu si fiican si ugu wada gaaraan waa inaad faraha lugaha markaad weysaysanayso aad lugaha si fiican u dhaxgalgelisaa faraha sidoo kale faraha gacmahana aad si fiican aad isku dhaxgalgelisaa waayahay lambar 8 markasta dhinaca midig in laga horeysiyo bidixda markasta dhinaca midig dad lugta bilaabayso lugta midig gacanta bilaabayso gacanta midig inaasaas oo kale lambar 9 in 3 jeer xubnaha la mayro 3 jeer inaad xubnaha mayro xubnaha in balwil waa lagu sii sharaxayaa xubnaha in 3 jeer la mayro ayaa fiican laakiin haddii uu qofku hal mar mayro waajibku ka dhacay haddaad hal mar weysaysato waajibku ka dhacay laakiin waxaa aad u qurux badan inaad 3 jeer aad gacmaha mayro lugaha mayro wajiga ku celiso ayaa loo baahanyaa lambar 10 in weysadu xidhiidhsanaato oo aan xubna qaarkood qalalin weysada markaad weysaysanayso inay si xiriir ku ahaato oo xubnaha qaarkood aysan qalalin aad iyo aad baa u mahadsantiin waxaan filayaa inaad wax fiican aad ka faa'iideydeen insha Allah si toos ah ayay noogu socon doonaan duruusteenan dhammaan waxaan idinka codsanayaa mar kale inaad soo dhawaataan qalbi furan ku soo dhawaataan waxaan mar kale idinka codsanayaa inaad page-ka Facebook like iyo share dhahdaan follow dhahdaan sidoo kale haddii YouTube channel kala socotaan aad subscribe dhahdaan like iyo share si dhahdaan fikradiina waa muhiim in haddii in la qurux badan tahay inaan sidan u soo bandhigno casharadani inaad commentiga noogu soo qortaan waxay noo noqonaysaa dhiirigelin aad iyo aad u mahadsantiin walaalkay Nuur Yuusuf Axmed ayna leh maalin kale assalaamu calaykum wa rahmatullahi